2004 nin lagu magacaabo Marvel Himmer ayaa wuxuu cabsi geliyay dadka deegaankiisa degan oo waxyeelo weyn u geystay xarumahooda. Waxa uu ninkaasi waday qof ka warqaba ma aysan jirin. Waxa uu la soo baxay aalad uu soo habeeyay oo duminaysa wax walba ka soo horbaxa. Waxa uu bilaabay inuu wax walba ka soo horbaxa jiro ama uu dumiyo iyadoo aysan cidna joojin karin. Markii dambe cagaftii ama aaladii uu ninkaas sameeyay wax duduminaysay waxa loo bixiyay Killdozer, taasoo wax walba jiiraysa. Ninkii iska lahaa ayaa waxa uu cagafta caadi ah ka dhigay tu wax disha. Meesha waxa ka dhacaya waxa ahaayeen wax aad loola yaabo. Waxa meesha joogay xataa wixii askar magaalada joogto dhan ayaa meesha iskugu yimid. Askartuna waxa ahaayeen kuwa xabada dhinac walba ka girday iyo meel walba, laakiin kuma guuleysan ay joojiyaan. Su'aasha muhiimka ah waxay tahay maxay ficiltaas oo kala qof bin aadam maskaxdiisa ugu soo dhacaysa. Fiidiyogan ayaan uga jawaabi doonaa su'aashaas wax walba ninka ku saabsan sheekadiisa waana ka faalan doonaa daawasho wacan. Marvel waxa uu guuray gobolka Colorado markay ahayd 90-nadii. Waxa uu doortay magaalada Granby si uu u dego. Markaas waxa uu ahaa 40 jir oo caruur mulahayn xaasna mulahayn. Waxa uu ahaa mid kaliya nool magaaladaas cusub uu degay asxaab kuma lahayn, asxaabna kuma sameysay, laakiin waxa uu ahaa mid mar walba shaqeeya shaqadiisa ku dadaala. Kadib waxa uu furtay meel qalabka gawaarida lagu iibiyo. Jaarka Marvel waxa ay sheegeen in uu ahaa qof iska degan oo buuq badnin. Waxa uu ahaa mid ka fogaada inuu qof dhibaato u geysta ama ay isqabsadaan. Laakiin dhibaatadu waxay bilaabantay markii ay ahayd 2001 markii ay mas'uuliyiinta gobolka ay ka dhiseen gurigiisa shirkad shubka ama shirkadda samaysa sawirka iyo waxaas. Shirkaddii waxa ay xidheen wadadii weyneed oo dadku isticmaalayeen. Wadadaasna waxay ahayd wadada kaliyaata ee tagaysa meesha uu ka shaqeeyo Marvel. Waxa uu ahaa mid sanado badan wadadaas maraya, laakiin wadadii waxaa xidhay shirkadda meeshaas laga dhisay. Waxa uu maxkamadda gobolka u gudbiyay dhaleecooyin badan si aan shirkadda meesha looga dhisin, laakiin cidi waxba kama soo qaadin hadalkiisa. Waxa uu isku dayay shacabka inuu kiciyo oo mudaharaadyo laga soo horjeedo arrinkaas, taasna kuma uusan guuleysan. Ugu dambeyntii waa uu isdhiibay. Waxa uu ogaaday in uu guuldareystay gorgortankii kala dhexeeyay shirkadda. Waxa uu tagay xafiiska gobolka waxa uuna u sheegay mar kale inuu ka hor istaagi doonin hawshaas, balse waxa uu ka codsaday codsigii u dambeeyay codsigaas oo ah in ay siiyaan qalab uu ku sameeyo waddo kale. Codsigii laftirkiisa waa laga diiday. Arrinkaas xaggaas kumuusan ekaan waxa ay sameeyeen in ay ka jaraan tuubooyinka biyaha ee gurigiisa ku xidhiidhsan. Sababtaas darteed waxa uu bixiyay lacag aad u fara badan. Sharciga gobolka Colorado waxa uu ansixinayaa ama dhigayaa in ay hal meel isku keeno tuubooyinka biyaha ee xaafadaha taga si warshadaas ay u hesho tuubooyin biyo. Qofkii sharcigaas diidana waxa lagu ganaxayaa lacag aad u fara badan oo maalin walba bixinayo. Markii waxaas dhan ku dhacayeen waxa uu ku dhawaaday inuu waashto Marvel. Waxa uu soo qaaday warqad qalin waxa uu ku qoray waxa ay dawladdu iyo shirkaddu u geysteen, laakiin qof garab istaag wuu waayay. Markan xataa waxa uu diyaariyay liis ay ku jiraan dadka ka dambeeyay in ay ka dhisaan halkan shirkadda sawirka samaysa ama shubka u taqaanaba. Waxa uu ka qorsoomay dadka muddo sanad iyo badh. Muddadaas waxa uu iibsaday cagaf caadi ah. Waxa uu bilaabay qorshihiisa in uu filiyo. Waxa uu bilaabay in uu hagaajiyo uu qalab ku xidho ka difaacaya rasaasta iyo bombada gacanta. Waxa uu ku xidhay qorir rasaas nool ridaya. Waxa uu sameeyay gaashaan aysan waxba ka tirin xabadu. Markii dambe waxa uu ku xidhay 4 geesba kaamirad meesha dhexdeeda. Waxa uu dhex dhigtay meesha shaashad uu ka arko waxa hareerihiisa jooga. Waayo ninkan waxa uu ku wareejiyay bahasha dhan bir nuxaas oo weyn oo aad u culus. Kaamirada laftirkeeda waxay awood u lahayd in ay u adkaysato xabad ama rasaasta. Waxa uu ku wareejiyay ama uu ku xidhay kaamirada caag cad oo ka hor istaagaya in ay kaamiradu wax noqoto. Waxa uu ka dhigay sida kaaraha oo kale cagaftii uu soo iibsaday. Muddada sanadka iyo badhka ah dadku waxay ahaayeen kuwa arkaya waxa uu sameynayo, balse may moodeen Marvel qalab wax burburinaya inuu sameynayo. Waxaasoo kale kamaysan filanay inuu sameyn doono waqtigaas oo dhan. Maalinba ka dambaysta waxa uu ku sii kordhayay kalsoonida fikraddaas uu ka qabo
ilaa si buuxda ugu qancay waxa uu sameynayo. Markuu dhammaystiray qalabkii uu isku xidhay, waxa uu bilaabay qorshihiisii uu rabay in uu fuliyo. 4 July 2004 ayaa waxa uu bilaabay qorshihiisii inta uusan waxba sameyn. Waxa uu cunay cunto badan, waxa uu sii fiiriyay gurigiisii aragtidii u dambeysay, wuxuuna ogaaday inuu mar dambe kusoo laaban doonin. Waxa uu dhaqaaqay dhanka iyo shirkaddii, waxa uuna burburiyay dhammaan darbiyadii meesha ku hareeraysnaa. Waxa uu haddana galay magaalada oo iyadana guryo badan ayuu ka burburiyay. 2 saac oo xiriir ayuu wax burburinayay. Waxa uu dumiyay dhismayaal aad u muhiimsan ay ka mid yihiin xafiisyaasha dowladda ee ugu muhiimsan. Waxa uu eeganayay basaata dadka ka dambeeyay gurigiisa in shirkad laga dhiso ee dadka kale waxba ugu geysanin. Qiyaastii waxa uu burburiyay 13 guri iyo shirkadda. Warka wanaagsan ayaa waxa uu yahay in aysan waxdada ku dhaawacmin hawlgalkaas. Askartuna waxa ay kuwa ku ridaya dhinac walba xabada. Meeshuu tagana ka daba tagaya. 2 saac oo xiriir ah ayay xabada ku ridayeen 4 kaamirado, balse waxa way noqon waayeen. Markii ogaaday in ay ninkan saas ku joojin karin, qaar iyaga ka mid ah waxa ay fuleen xagga sare ee caafta uu sameeyay Marvel, balse way waayeen meel laga galo oo gebigeeduba way wada xiran tahay. Gudaha ayuu iskaga laxamiday, albaab laga soo galana ma laha, lagamana bixi karo. Markii xogaa raadinayeen meel laga galo, waxay heleen dalool yar oo ay hawada ka soo baxayso. Waxay ku tuureen sunta dadka ka ilmeysiisa, laakiin waxa la yaabka ah ayaa waxay tahay in aysan gudaha ku dhex qarxin, sababtuna cid taqaan male. Markii dambe waxay askartu soo qaateen cagaf kale si ay u hor istaagto oo ay u joojiso, balse way kari weyday. Haddaba markii xaaladdu xagga maraysay oo ay faraha ka baxday, askartii way niyad jabeen oo way isdhiibeen. Xataa waxay soo kaxaysteen helicopter dusha ka duqeysay, rasaasna ku riday, waxna way ka tirweysay. Waxa uuna sii watay hawshiisii. Waxa uu bilaabay inuu dumiyo guryo wadada ku agyaala. Markii dambe waxa uu dareemay cilad dhanka mishiinka in ay timid, taasina waxay sababtay in ay istaagto cagaftii. Waxay ahayd cagaftu tugidaarka madaxa kula jirta oo aysan dhaqdhaqaaqin oo shibtiri. Markay xaaladdu xagga maraysay, askartii ayaa meel walba ka soo hareeraysay. 1 daqiiqo markay ka soo wareegtay ayaa waxay maqleen askartii cod rasaas oo dhacaya oo gudaha cagafta ka dhacaya bahasha dhexdeeda. Codku rasaastu may soo bixin, balse codka unbay maqleen. Xogaa kadib waxay askartu ogaadeen in uu isdilay. Waxa ay isku dayeen ay furaan qalabka ku dul xidhan, balse way furi kari waayeen. Xataa buubooyin bay ku rideen oo si walba noqdeen. Dambeyn markii xaaladdu xagga maraysay oo dhowr jeer ay isku dayeen, way ku guuleysteen oo qalabkii ayay ka jarjareen biraha ku hareeraysnaa ee cagafta. Waxaa lagu qiyaasaa khasaaraha ka soo gaadhay $7 milyan. Ka war ninkaas soo u dhaqmay ma si saxanba. Sheekadan ayaa labada qaldan. maad ku fikri lahayd waxaasoo kale in aad samayso haddii dowlad ku xumayso ama ku dulmido. Ilaahayna kama dhigee. waxaan soo gaarnay gabagabadii fiidiyoga ee meesha cas naga cadeeyay. waad ku mahadsantahay dawashadaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.